wax badan baanu wadaagnay saaxiibtinimaanu wadaagnay dawladdaannu ku wada jirnaa howlaha dalkaannu wada jirnaa safiirro waaweyn oo ka soo jeega deegaanka uu ka soo jeedo ayaannu asxaabnimo iyo ehelnimoba wadaagnay waa idinka tacsiilaynaa marka hore innagoo dhan baa iskaga tacsiilaynaa ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannatulfirdowsa ka waraabiyo meytidoo dhan oo muslimka ah baa duco inaga galabsata oo waajibaadka inagu leedahay ah laakiin marka uu xil weyn ummadda u hayana qofka mas-uulkii khayr badan ayuu shaqaystay waajib badan baa inaga saaran inaynu si gaara ugu ducayno waanu u ducaynaynaa eheladana waxaanu leenahay ilaahay samir iyo iimaan haydinka siiyo dhammaantiinna haynaga siiyo dhaqanku waa dunta isku xidha ummadda dunta isku xidha weeye waxaan hubaa intii uu shaqada ku jiray inuu shaqo degaan iyo mid deris iyo mid dalbahayey sida aynu wada ogsoonnahay shirarkii dalkan dowladnimadiisa lagu soo yegleelayay gacan weyn buu mar walba ka geysanayay inahan dambe waa yeelnimo iyo caafimaad darro ayuu ku sugnaa laakiin wakhtigiisii ugu muhiimsanaa dalka ayuu geliyey ilaahayna ajarkiisa uu ka siinaya waanu weyneynaynaa waanu idinla tiiranyoonaynaa laakiin dadka muslimkii ee caqiidada leh waxay hubaan nolosha lagu waaraya inay aakhiro tahay taasna duco ayaa wax ka tarta iyo ficilka wanaagsan ee kii uu ummadda ku dhaqayey ayaa lagu liibaanaa hadal badani halkan noogama furna ugaaska waana u ducaynaynaa tacsidana waa idinkala qayb qaadanaynaa iyadoo howlo waaweyn ay noo yaallaan baanu intaas rag aad arkaysaan iyo dumarba isa soo raacnay miisaanka beeshana ay agtayada ka leedahay ama ta guud aad ka dhawaajiseen ama baxda gaarkaba ah ayay ka tilmaamaysaa sharaf bay noo tahay inaannu arrinta idinkala soo qayb galno waa u ducaynaynaa meytidoo dhan baanu u ducaynaynaa dalka iyo dadkana waanu u ducaynaynaa sunne waajiba baynu halkan ku fushanayna maanta aad iyo aad baan u salaamaya qoyskana gaar baan ugu tacsiyadaynayaa